wiilwaal wuxuu dhashay 1793 wuxuuna dhintay 1856 markii garaad wiilwaal uu halkan tilmaamayay magaalada deegaanka markuu tilmaamayay wuxuu yiri biyo u dhow oo ban u dhow oo buur u dhow oo balad u dhow geel baa la dhaqan jiray waqtigii wiilwaal maadaama dagaal lagu jiray geel baa la dhaqan jiray caanaha geela marka uu tilmaamayay garaad wiilwaal wuxuu oo murtidiisina kamid ah waa hamuun beel buur oo waa haraad beel oo waa hungur beel buur xiriiradiisa waxa ugu weynaa xiriirka uu lahaa Amir Ahmed oo amiirkii harar ahaa oo kii saddexaad ahaa wiilwaal walaashiina qabay anoo ku abtirsanaya Ahmed Umar Yusuf magan oo faruur ah oo ina wiilwaal ahaa waxaan haddana oo daadii ugu yarayd ahayd wiilwaal u dhalo waxa qayb kamid ah gabayga kamid ahaa dadka kale tumaal buu ku oran ku abtiriyay aniga se tagooga iyo wadnaha adigaga taala taas waxay ku sheegaysaa markaa in dad hebel waa tumaal iyo hebel waa waxaasi ma jirin dadku dad siman bay ahayn ilaa boqol ceel inay ku taalay magaaladan Jigjiga ayna u soo aroori jireen marka la eego ilaa 50,000 oo neef